بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه وشيخ عثمان عبدي وكوني كاحة محمد عبد حميد نجمة يوسف ولما ضوضب لما روح أنا وح مقلينين إسلا وقت قاسنا أهلي كريم وأروسك وهري ونوعا وكدع مقالة قارسة إيجابي هامبا قبل كوغوي بري أنت لو كسوني هاي كدب مركو نكاحة دعي يا شيخ عثمان وحو لتلي دادك كسوق قالين نكاحة خاصة لنعا عرورتا وحالا كان لسقان سنيهين والدين تا علمه وإن لغو كبنادا أنا الله يعين وحالا يابا إن ودقا قبين لكن كأقل بدين إن قبين وحالا يابا إن القرآن كو حفظيه وحكا ستا سورة قلواي مركا وحالا موغان كارت حكمة إلهية علمها لو قوري وحتى هلا بدي يقورك دارك أنا إن نافيين لغا يابا إن بلايين لغا يابا وإن لو قوريا أنا نتكورين لحسدين لغا يابا تكافي في عن إن دلان بابد وقتها وحان لجوغا عروسكي محمد عبدي حميد أنا روح وهرية أو عروس لبض وحب مقلينين أي ساروستان إن ما دام محمد وحي أن ويدي ومقلينين وحهذا بمركا إيه تفسير دونت محمد وحو الشيء حد مجورة أو إذا معلمة تخصص تي لهذا ذاتك عن وح مقلينين أنا هالي كرين وهرينتي وحن محمد ويدينا ما دام أو لبض أيهن ضد مركا وح مقلينين أو نس أروستين حالة سيبا مركا يكتاي بابد wuxuu ku faraxsanay arooska aan galaayo waxaan u mahadcelinayaa waalidkayga keedaba waxa kale oo weydiisay maxamed maadaama ay caadi ahayn dad waxba maqlaynin inay saroostaan oo badi marka la qariyo oo guryaha marka lagu hayo oo sidaas ay ku weynaadaan ayagoo reer aan yeelanin asaga marka maadaama as fursadan as helay maxaa u fududay in uu ku guuleysto oo in marka aroos weyn marka magaalada Gaarisa loogu dhigo wuxuu yiri mid ilmaha dhawoolaha waxbarashada la barayo horta faa'iido badan bay leedahay wuxuu dhahay Soomaalida horta aad bay u takooraan ilmaha dhawoolaha iyo waalidkay khayr ilaah si iskuulka eegeen baa wuxuu dhahay horta ii fududeysay inaan barto luqadda iskula hadlaan dadka dhawoolaha midda kalena waalidkayga aad ii taageeray oo heerkan hadda aan taagan i gaarsiiyay waxa kale oo weydiisay maxamed ilmo sidee buu rabay inay u dhashaan محمد wuxuu yiri waxaan jeclaan lahaa horta inaan ilmo 7 ama 8 dhalo maxaan jeclaan lahaa aad inaan wiil ku curtaan rabaa hadana gabar ku xijisiyo wuxuu yiri labada wuxuu ilaahay isiyo waan ku shukrinayaa hadduu dhagolehna waan jeclaan hadduu dhagalehna waan jeclaan alxamdulillah waa Cabdi Xamiid Sheekh Xasan Shiil alxamdulillah ninka Maxamed ana dhalay ragaygu u weyn yahay 3 wiilal ah iyo 2 gabdhood ayuu ilaahay nasiib wanaag shantay waxay noqotay 5 aan waxna maqlin aanan hadlin 2 gabdhood oo alxamdulillah waa la guursaday reeray leeyihiin waxa dhacday wiilka Maxamed in gabar family ayagana ilmo dhagoolo qabaan oo soo arkooday oo uu yiri aabo family-gaasaan gabar ka jeclaada ayagana waa anagoo kale waxaan yiri aabo way fiican tahay dhagoolada qabiil ma qabaano waan ku doonaynaa gabadha aanan maqlin aanan hadlin oo adigoo kale alxamdulillah nin ehel sideedoo kale aniga 5 aanan hadlin aanan waxna maqlin ba ilaahay siiye asagana 3 buu ilaahay siiye waxa hadii ilaahay qadaray oo tii Allah ay ku noqotay in aan gabadhi iyo wiilka aan is siino gurigaas waxaan ugu dhisay oo qarashka iyo tidaas faraha badan aan ugu sameeyay in uusan is tusin aroosyada dadka dhagaha qabo aroos ka nusqaansan baa lagu sameeyay sifa uusan niyada u gashanin waxa dheer marka uu u qalbaysan yahay maadaama dad aanan maqlin aanan hadlin ay aroos ku yihiin bedelkii gambaleelka waxaan ugu sameeyay banaanka guriga oo flashlight wax la dhaho oo dadka aanan wax maqlin loogu baaqo marka iridda soo istaagto flashlight kaas taabane bedroom ka haday ku jiraan way ka caayin qofka marka albaabka taagan markii way ka furayaan